halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com duhur wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa maalin salaasaa bisha Julaay ay tahay 1 sanadku waa 2020 goorshoogtu waa labadii duhurnimo oo goowa wararkaanu maalinkan maanta idin haynana waxaa ugu mudan ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo ku dagaalamaya Dhuusamareeb halkee wax marayaan rabshadihii ka socday dalka Itoobiya iyo alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay hambalyo iyo annaga oo ay laftiga Canada ay noo tahay maalinta xorriyada Canada waa Soomaalida Canada oo laba xornimo xusaya dalka ay ku nool yihiin iyo kii ay u dhasheen oo isku hal maalina iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarina kamid yihiin waa barnaamij ay soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow waxaana ay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil akhiyaarey door wanaagsan qodobadaas oo fidsan way dambeeyaan balse aynu ku horreyno wararka caalamka Bushra Nuur Maxamed baa diyaar lah Bushra mahadsanid Dhimbiil booliska Hong Kong ayaa bilaabay inay ku shaqeeyaan sharciga cusub ee xukuumadda Beijing ku soo rogtay dhulkaas waxayna u isticmaaleen dadkii dibad baxayay biyaha booyada laga tuuro iyo sunta indhaha ka ilmaysiisa 70 qof ayaa la xiray mid ka mid ah dadkaasi ayaa la qabtay isagoo kor u haya waraaqo lagu dalbanayo xorriyadda Hong Kong Taiwan ayaa sameysay xafiis lagu qaabilayo dadka ka soo cararay Hong Kong taasoo mas'uuliyiinta qaar ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan sharciga cusub ayaa xukuumadda Beijing u sahlayo inay awood xad dhaaf ah ku yeelato Hong Kong waa kan mid ka mid ah dadka degan Hong Kong oo arintan ka hadlaya I believe the public do not have enough time to understand. Waxaan aaminsanahay bulshadu inay helin waqti ku filan oo ay ku fahmaan muhiimadda sharcigan uu xambaarsan yahay. Waxa laga yaabaa inay ku jahwareeraan wixii ay sameyn lahaayeen iyo waxa sharcigu u ogolaanayn in ay sameeyaan intaba. Waxaan aaminsanahay in ay ku jahwareersan yihiin jahwareer sharciga la xiriira. I believe they confusion about the law. shacabka Ruushka ayaa maalintii ugu dambeysay u codeynaya afti socotay ilaa hal toddobaad taas oo laga yaabo inay u saamaxdo madaxweynaha dalkaasi inuu xilka hayo 16 sano oo kale madaxweyne Putin ayaa codkiisa dhiibtay isagoo maaskaro xirnayn kooxaha mucaaradka ayaa ku gacan seeray aftidaasi waxayna sheegeen in madaxweyne Putin uu sidoo doono ka yeelanayo sharciga Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ugu baaqay Israel inay joojiso dhul balaarsiga ay ka wado daanta galbeed mar uu wareysi siiyay wargeys ka soo baxay Israel ayaa wuxuu sheegay in talaabadaasi ay xadgudub ku tahay shuruucda caalamiga ah wuxuuna intaasi raaciyay in dalkiisa uusan aqoonsan doonin dawladda Israel ayaa sheegtay in laga yaabo inay maanta bilowdo hanaanka dhul balaarsiga balse qorshahaasi wuxuu u muuqdaa mid uu hakad ku yimid wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 60 qof oo muhaajiriin ah ay ku dhinteen doon ku degtay harada Van maalintii Sabtida Suleymaan Soylu ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay soo saareen meydadka 6 qof xabsigana loo taxaabay 11 qof oo kale oo looga shakisan yahay inay dadkaasi tahriibinayeen ugu dambeynna hogaamiyaha gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa ka digay in gobolkaasi oo dhan lagu soo rogi doono xayiraad waa haddii la xakameyn waayo fayraska corona ee ku faafaya magaalada Melbourne Daniel Andrew ayaa ugu baaqay dadka degan magaaladaasi ee qaarkood lagu soo rogay xayiraada inay raacaan talaabooyinka lagu amray warkii dunida waa naga intaas Dhimbiil aad bay Bushra u mahadsan tahay dhageystayaal u diyaar garoobay idaacadeennii duhurnimo wafidsan aynu ku bilownay wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in isku horimaad dhex maray ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka khasaare dhimasho iyo dhaawac bale ayaa la soo wariyay haddaba si aanu helno faahfaahin dheeraad ah waxaa qadka Muqdisho toos ugu jira wariyaha BBC-da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan Cabdiraxmaan dagaalkaasi wuxuu dhex maray ciidamo ka wada tirsan dawladda gaar ahaan ciidanka gaarka ah ee booliska ee la yiraahdo Haram Cad iyo ciidamo ka tirsan kuwa hay'adda nabad sugidda
la yiraahdo nisa iskorimaadkaasi duhurnimadii ayuu bilowday dadka deegaanka waxay BBC-da u sheegeen in cabaar ahba ay maqlayeen rasaasta labada dhinac ay isku ridayeen ilaa hadda ma jirto sababta labadaas ciidan keentay inay isku dhacaan ama dagaalkaasi uu dhex maro dad ku sugan Dhuusamareeb waxay BBC-da u sheegeen inay arkeen ilaa 5 qof oo dhaawac ah oo isugu jira askartii dagaalantay iyo dad rayida wararka qaar waxay ka hadlayaan dhimasho laakiin ilaa hadda cid xaqiijisay ma jirto xiriir kala duwan oo la sameeyay maamulka ilaa hadda ma aysan suurtagelin qaarkood waxay sheegeen in ay maqlayaan rasaasta iyo iskorimaadka magaalada ka socda laakiin aanay macluumaad intaa ka badan aanay haynin dibna ay ka faahfaahin doonaan wixii dhacay indhawaalaba waxaa jiray muran la sheegay inuu u dhaxeeyay labada ciidan gaar ahaan bar control oo ciidanka booliska gaarka ee Haramcad ay joogeen oo la sheegay in marka ciidanka nisa ay marayaan in ay kala kulmi jireen caqabado dhowr ah marka ilaa hadda ma cadda laakiin dadka qaarkii ayaa arrintaasi sabab uga dhigaya laakiin waa sugi doonaa sida hadba warku isu soo tiro magaaladaasi Cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Aadan oo inala socodsiinayay xogtii u dambeysay ciidamo qaar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka oo isku leynaya magaalada Dhuusamareeb haatana Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa sheegay rabshadaha dalka ka socda inay la mid yihiin kuwii ka dhacay bilihii July 2018 iyo 2019 lagu doonayay in dhiig badan lagu daadiyo Abiy ayaa sidoo kale sheegay in dilka fanaanka loo geystay uu yahay mid qorsheysan oo kaasna lagu doonayay in ammaanka dalkan khalkhal lagu geliyo rabshadahan ayaa ay ku dhinteen 6 qof halka ay dad ka badan 70 kalena ay ku dhaawacmeen Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo si dhow ula socday arrimaha Itoobiya ayaa bal iga warramay halka wax marayaan iyo xogtii u dambeysay dhimbil ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa xalay telefishinka dalkaasi shacabka dalka Itoobiya fariin uga diray wuxuuna sheegay in uu aaminsan yahay dilka fanaanka in uu midnimada iyo waliba nabadda dalkaasi Itoobiya uu wax u dhimaynin balse uu sii xoojin doono isagoo markaa fariintiisii watan waxa uu yiri si rabitaanka cadowga dalka Itoobiya uu meel marin in ay shacabka dalka Itoobiya gacmaha isqabsadaan wuxuuna shacabka u ballan qaaday in ay dawladdu dilka fanaanka baaritaan qoto dheer ku sameynayso si ay gacan ku dhigalayaashu sharciga u horkeento dawladuna waxay wax waliba ka horeysiinaysaa ayuu Dr. Abiy sida ay u xaqiijin lahayd qaranimada nabadda iyo rabitaanka dalka sidii uu meel marin lahaa cadowgeena ayuu yiri waa isagoo hadalkiisii watee waxay doonayaan in ay qoomiyadda Oromada iyo waliba qoomiyadaha kale ee dalka iska horkeenaan ayuu yiri wuxuuna sheegay fanaanka la dilay Hachalu Hundessa inuu ahaa geesi qaranka dalka Itoobiya ka dhintay marka Cabdiraxmaan dhanka boolisku iyagu rabshadahan iyo hawshan ma ka hadleen dhankooda dhimbil way ka hadleen booliska federaalka iyo booliska deegaanka Oromada arrintan sida gaar ku qosaysa ayaa shir jaraa'id oo rabshadaha dalka Itoobiya ka socda ku saabsan ku qabtay magaalada Addis Ababa komisharka booliska federaalka Itoobiya General Indeshaut Asaw wuxuu sheegay Jawhar Maxamed Baqale Garba iyo 35 xubnood oo kale oo uu magacdooda sheegin in ay booliska xabsiga u taxaabeen wuxuuna intaa ku daray in ay sidoo kale booliska la wareegeen 8 qori oo qoryaha loo yaqaan AK47 5 bastooladood iyo 9 fooneeyo oo ilaalada Jawhar ay adeegsanayeen ayuu yiri generaalku wuxuuna intaa ku daray in ay cidna sharciga ka sareyn shacabka dalkana aan lagu marin habaabin ragga la xiray inay si sharci darro ah ay dawladda ugu xiran yihiin taliyaha booliska deegaanka Oromada Ararsa Mardasa wuxuu isna sheegay koox uu hogaaminayo Jawhar Maxamed inay hor istaageen naxashka fanaanka la dilay in la gaarsiiyo magaalada ku dhashay Ambo wuxuuna sheegay kooxda Jawhar inay hal askari ay ku dileen xafiiska PP ee deegaanka Oromada oo ay kooxda Jawhar hogaaminayo ay isku dayeen markaasi xoog ku galaan waxayna booliska xaqiijiyeen ilaa iyo hadda 35 kaas qof xarigooda oo uu Jawhar Maxamed ku jiro marka imika rabshaduhu halkay wax marayaan rabshadu weli waa ay socdaan dhimbil walow ay sidii shalay ay u xooganayn rabshadaha inta ay bilowdeenna waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof dad ka badan 70 waa ay ku dhaawacmeen walow ay jiraan ilwareedyo kale oo tirada intaasi ka badinaya hay'adda u dooda xuquuqda wariyaasha ee CPJ waxay dawladda Itoobiya uga baaqday inay degdeg ku sii deyso wariyaasha telefishinka OMN ee ay shalay xabsiga u taxaabeen waxayna hay'addu sheegtay inay ka shaqaynayso sidii ay u ilaalin lahayd xuquuqda wariyaasha dalka Itoobiya si ay shaqadooda si xorriyad ah oo aan cabsi lahayn ay gutaan marka dhimbil xaalka Itoobiya wali farkama qodna ayaa la oran karaa kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo ina fahansiinayay xogta ka socota Itoobiya iyo halka ay sal ku leedahay rabshadaha dalkaasi ka dhacaya bal haddii aynu eegno qodobka waxay ka yidhaahdeen qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtidooda noo soo mariyay bartaanu ku leenahay Facebook waa Maxamed Shaafi Sheekh Xasan oo jooga Boorama wuxuu rabshadahaasi gilgilay dalka Itoobiya ee salka ku haya buu dilka fanaanka caanka ahaa runtii waxa xukuumadda dhexe looga fadhiyaa inay u koor gasho si ay u hesho cidii ku lug lahayd falka dilkaas fanaanka
oo ay shacabka gadoodsan ay tusto cadaalad ay ku laabqabowsadaan buu dhegaystahani qabaa. bal haatanna dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa BBC xilli goorsheegtu ay ku sii dhowdahay 12 daqiiqo. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. haatanna booliiska dalka Talyaaniga ayaa qabtay daroogo gaadhaysa 14 tan maandooriyahaas oo sida ay sheegeen laga keenay Syria lalana xidhiidhinayo ururka isugu yeedha dawladda Islaamka. faahfaahinta xogtaas ayaan ka waraystay Shukri Siciid oo wariye madax bannaan oo dalka Talyaaniga ku sugan. daroogadan Captacom baa la yiraahdaa hadda ka hor baabata kalaan Faransiiska 2015 baa laga helay marka darooga ISIS baa la yiraahdaa ISIS baa samaysa oo daroogadan waxaa lagu ogaaday markabkaasiday Syria ka yimid wuxuuna ku wajahnaa Libya ku wajahnaa marka meeshan Nepal oo Southka Talyaaniga yuu si transit ah umarahayay marka intelligence-ga Talyaaniga yaa ka shakiyay waxay arkeen containerkan yaala meesha xeebta oo internationalka oo caalamiga ah way baareen gudahooda markay baareenna waxay ka heleen daroogadan daroogadan waxaa la soo geliyay geedo oo maxaa haydeen plastic oo waaweyn oo 2 mitir gaarayo oo Jarmalka lagu sameeyo loogu talagalay kuwan kaartada oo magaciisiga in la geliyo cilindarayaasha loogu talagalay gudaheeday ka soo buuxiyeen laakiin containerka korka waxay uga qornaayeen maryo iyo qalab kale inuu waday oo Libya u waday marka maxaa lagu xaqiijiyay markay boolisku sheegeen in laga keenay daroogadan Syria oo ay leedahay Daesh wax xaqiijina maxay sheegeen waxay sheegeen macluumaadkan daroogadan magaca korka uga qornaa yaa wuxuu yahay daroogada horay loo yaqaanay inay ISIS ay leedahay oo meelaha ay sida Bataclan iyo oo Paris shilkay ka sameeyeen iyo meelaha kale lagu soo arkay oo iyagu Captacom baa la yiraahdaa waxa loo yaqaanaa inay daraag ISIS ay tahay iyaga sameeya waxaana lagu sameeyay Syria lagu sameeyay meesha oo maaragtay Islamic State ka saldhiga oo ah yaa lagu sameeyay marka intelligence-gu awal bay horay ula socdeen daroogada noocaana in iyagu sameeyaan haddana toos Syria uga soo direen hore ma u dhacday in daroogo intan leeg uu Talyaanigu qabto ay leedahay ISIS oo kale ama Syria laga leeyahay maya wax intaan daroogasan caalami u ah oo tiradeedu intaas dhan tahay oo 84 milyan oo kaniini meel intaas tira leeg adduunka hadda waxay leeyihiin booliska iyo dawladda Talyaaniga weligood yaalahood lama qaban ilaa intaas oo lacagtaas 1 bilyan oo euro bay gaaraysaa aad bay u mahadsan tahay Shukri Siciid oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haatanna Soomaalida ku nool dalka Canada oo sanad walba maanta oo kale si wada jiray u xusi jiray xornimadii Soomaaliya iyo tan Canada ayaa sheegay in suumaadinkoodii uu saameyn ku yeeshay fayraska corona iyadoo qaar badan oo kamid yahay go'aansadeen inay munaasabadan ku xusaan iyagoo ku sugan guryahooda warbixin hadaba amuurtaasi ku saabsan waxaa Canada ka soo diray Durraan Xasan Yare kowda luulyo ayaa maalin ku weyn Soomaalida ku nool dalka Canada maadaama maalintan kulmisay xornimada Soomaaliya iyo xornimada Canada oo labaduba isku maalin ka xoroobeen Ingiriiska Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madaxa hay'adda iskeerdo ayaa ii sheegay in sanadkan si ka duwan sanadihii hore ay u xusayeen kowda luulyo sababo la xiriira xanuunka COVID-19 sanadkani wuu ka duwan yahay sanadihii hore muddana waa soo wadnay qabanqaabada xuska maalinta xornimada Soomaaliya kowda luulyo nasiib darro ma suroobin iyadoo adduunka COVID-19 uu ku habsaday laakiin sanadkan qaab ka duwan yaan u qabanay annagoo isticmaalayna baraha bulshada waxaanu bulshada Edmonton ku wacyigelinay ama Albertaba inay ku xusaan meelo gaar ah sida guryahooda meelo kale oo loo asteeyo laakiin iyadoo la eegayo shuruucda u degsan COVID-19 ka sida social distance-ka marka xaqii qabanqaabada haday calamo ahaan lahayd folklore ama traditional dance-ki ama hidiyo dhaqanka wixii oo dhan qolo waliba maaragtay meeshii bay kaga jirtaa laakiin arintii weyneed ee soo baxa baa xogaa wuxuu naga galay hakad marka alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay hambalyo iyo annaga oo ay laftiga Canada ay noo tahay maalinta xornimada Canada waxaan si adag ugu dardaarmayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan waalidiinta iyo dadka waaya araga ee og halganka la soo maray xorriyadda inay carruurtooda ku dhiirigeliyaan oo ku barbaariyaan jacaylka maalmaha xorriyadda iyo dalka Soomaaliyeed
liibaan gabayre wuxuu 30 sano ee la soo dhaafay maanta oo kale u dabaaldegaya 1 Luulyo balse maanta wuxuu maciin biday dhageysiga suugaanta ka hadlaysa muhiimadda maalintan isagoo sida uu ii sheegay ku dabaaldegaya gurigiisa oo ku yaala magaalada Toronto. sanadkan way ka duwan tahay sanadada hore u dabaaldegi jirnay maanta waxaan ku dabaaldegaynaa guryaheena oo aan joognaa xaaladdan waxay ku dhacday waa la socotaa cudurkan coronavirus-ka ah waa cudur dilaa ah iyadoo dawladda Canada ay ka taxadarayso inaanu dadka ku faafin ayay waxay ugu talagashay in sanadkan guryaheena aan ku ciidno taasoo keenta maanta inaan ku dabaaldegno aqaladeena ku dabaaldegno carruurteena iyo xaasaskeena aan la dabaaldegno annagoo meeshaan heeso ku qaadayno maanta taariikhda uga sheekaynayno carruurta iyo dhalinyarada si ay u ogaadaan xornimada aan qaadanay inaanay ku imaanin si sahla oo ay tahay wax ay wiilal iyo gabdho badan ay ku bixiyeen dhiigooda aqligooda iyo aqoontooda ay ku bixiyeen inkastoo xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay isu soo bixi sanad walba Soomaalidu dhigi jireen ayaa haddana qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalkan hambaliyada 1 Luulyo la wadaageen shacabka Soomaaliyeed. magacayga waa Aamina Xuseen hambaliyo ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan 1 Luulyo waxaanan u dabaaldegaynin xanuunka COVID-19 haase ahaatadeeda guryahanaga ayaan joognaa ku dabaaldegaynaa hambaliyadana ka direynaa ilmaha iyagana aan ugu sheegaynaa dhaqanka iyo taariikhda iyo waqtiga aan xornimada qaadanay. anigoo ah Cabdullaahi Xasan Jooye waxaan halkaan hambaliyo uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogaan waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay dhammaan hambaliyo 1 Luulyo. sanado badan ayaa Soomaalida iyo dadka kale ee Kanadiyaanka si wada jir ah ugu dabaaldegayeen 1 Luulyo balse sanadkan waxa uu noqday sanad ka duwan sanooyinkii hore. aad buu mahadsan yahay Durraan Xasan Yare oo warbixintaasi Kanada inooga soo diray. haatan bal haddii aynu eegno ciyaarihii xalay waxaa wada ciyaaray kooxaha Manchester United iyo kooxda Brighton Hove Albion oo ku dhamaatay 3-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Manchester United. haddii aynu eegno ciyaaraha maanta la filaya ama dhici doona oo xilliga 8 habeenimo Afrika dhici doona waa Newcastle iyo Bournemouth oo kulmi doona. Arsenal waxay wada ciyaari doonaan kooxda lagu magacaabo Norwich City, Everton iyo Leicester City baa wada ciyaari doona. sidoo kale waxaa iyana kulmi doona caawa kulka saacadda Afrikada bari tahay 10 habeenimo kooxda West Ham United iyo Chelsea. waxayna ciyaarahaas ka tirsan yihiin horyaalka dalka Ingiriiska oo kal horeba ay ku sii guuleysatay kooxda Liverpool. haatanna bal aynu eegno dhanka iyo baafintii. baafinta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdullaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan. mahadsanid Samiira. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Cusmaan Cabdi Cusmaan oo jooga xerada qaxootiga Dhadhaab waxa uu baafinayaa Cabdi Xasan Talsow iyo Cumar Cabdi Cali waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Soomaaliya. haddaba haddii ay maqlayaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Cusmaan Cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. nuur maxamed liibaan oo jooga xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxa uu baafinayaa dadka kale ah Sokorey Maxamed Liibaan iyo Xaawo Aadan Xasan waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Muqdisho sanadii 1991 haddaba haddii ay maqlayaan ama way jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Nuur Maxamed Liibaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Dhagaxley ama telefoonka nambarkiisu yahay 7 cabdinuur cumar haashim oo jooga xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxa uu baafinayaa Maxamed Nuur Cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kanada 2013 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Nuur Cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdinuur Cumar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Deeq Cali Faatax oo jooga xerada qaxootiga ee Kakuma waxa uu baafinayaa dadka kale ah Haaruun Cali Faatax iyo Shuuci Cali Faatax waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Burco sanadii 2016 haddaba haddii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Deeq Cali Faatax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma. Nuuriyo Macalin Geere oo joogto xerada qaxootiga Ifo waxay baafinaysaa Maxamed Macalin waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Djibouti 1996 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Macalin ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nuuriyo Macalin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
safiyo maxamed qaalib oo joogta masar waxa ay baafinaysaa dadka kale ah nimco maxamed qaalib suheyba maxamed qaalib mahado maxamed qaalib samiiro maxamed qaalib iyo amiire maxamed qaalib dhammaan dadkaasi waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada muqdisho sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo safiya maxamed qaalib iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay masar xasan xuseen dhaqane oo joogo xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa arduqaan cabdulqaadir cusmaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 2016 haddaba haddii uuna maqlayo arduqaan cabdulqaadir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xasan xuseen dhaqane iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab xaawo xuseen xasan oo joogta masar waxa ay baafinaysaa dadka kale ah cajabo bohgare cabdi xuseen xasan iyo muna xuseen xasan waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan muqdisho sanadii 2011 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo xaawo xuseen xasan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay muqdisho xabiibo maxamed cali oo joogto xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay baafinaysaa faadumo axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Dhoble haddaba haddii ayna maqlayso faadumo axmed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xabiibo maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhagaxley oo telefoonka lambarkiisu yahay eber 717 398762 xamdi maxamed aadan oo joogta xerada qaxootiga ee xagardheer waxa ay baafinaysaa dadka kale ah cabdi khaliif cali iyo ifraax maxamed aadan waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Mareykanka iyo Yemen sanadii 1994 haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo xamdi maxamed aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xagardheer Istar Maxamed Muuse iyo Faadumo Cabdi Cadow oo joogaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxay baafinayaan Xuseen Axmed Bootaan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Gurceel 2014 haddaba haddii uu maqlay Xuseen Axmed Bootaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Istar Maxamed Muuse iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee xagardheer kaaho aadan cusmaan oo joogta xerada qaxootiga ee xagardheer waxay baafinaysaa Maryan Macalin oo Saalax waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya sanadii 1991 haddaba haddii ay maqlayso Maryan Macalin oo Saalax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo kaaho aadan cusmaan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xagardheer maxamed cali wiirow oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa Muriidi Xaaji Cumar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Zambia 1991 haddaba haddii uu maqlayo Muriidi Xaaji Cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo maxamed cali iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab Yaasiin Cabdi Cabdulaahi oo jooga xerada qaxootiga ee Dhagaxley waxa uu baafinayaa Qadar Cabdi Cabdulaahi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika sanadii 2010 haddaba haddii uu maqlayo Yaasiin Cabdi Cabdulaahi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Yaasiin Cabdi Cabdulaahi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Dhagaxley ama telefoonka nambarkiisu yahay 747 salaaxo odawa cadaawe oo joogto xirada qaxootiga xagardheer waxay baafinaysaa ayaanla maxamed cumar waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Faransiiska 2018 haddaba haddii ay maqlayo ayaanle maxamed cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo salaaxo odawa iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xirada qaxootiga ee Dhadhaab Awil Cabdi Juux oo jooga xerada qaxootiga ee xagardheer waxa uu baafinayaa dhicis jaamac faarax waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya sanadii 2012 haddaba haddii uu maqlayo dhicis jaamac faarax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Awil Cabdi Juux iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xagardheer ama telefoonka nambarkiisu yahay 79537 Xaawo Axmed Nuur oo joogto xerada qaxootiga ee Kakuma waxay baafinaysaa dadka kale Xaawo Yari Axmed
xuseen axmed nuur iyo cabdulqaadir axmed nuur waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan baardheere 2010. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo xaawo axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Kakuma. cabdinuur cabdi garaar oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley waxa uu baafinayaa maxamed cabdi garaar waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan diinsoor sanadii 2004. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdi garaar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdinuur cabdi garaar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dhagaxley amaba telefoonka nambarkiisu yahay 712749574. xaawo aadan cali oo joogto xerada qaxootiga ifo waxay baafinaysaa cabdirashiid aadan cali waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Soomaaliya 1990. haddaba haddii uu maqlayo cabdirashiid aadan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. jibriil cabdulqaadir maxamed oo jooga xerada qaxootiga ee Xagardheera waxa uu baafinayaa saalax bulaale qowdax iyo shamso xaashi geele waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Sweden sanadii 1980. haddaba haddii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo jibriil cabdulqaadir maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Xagardheera amaba telefoonka nambarkiisu yahay 796 xaawo macow macalin oo joogta xerada qaxootiga ee Xagardheer waxay baafinaysaa Axmed Macow Macalin waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Soomaaliya 1994. haddaba haddii uu maqlayo Axmed Macow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo xaawo Macow Macalin iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. faadumo cabdulqaadir tahliil oo joogta xerada qaxootiga ee Kakuma waxa ay baafinaysaa Faiza Cabdi Xaashi waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan koonfurta Suudaan sanadii 2017. haddaba haddii ay maqlayso Faiza Cabdi Xaashi ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Faadumo Cabdulqaadir Tahliil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma. yaasiin cusmaan cali oo jooga xerada qaxootiga ee Xagardheer wuxuu baafinayaa maxamed yaasiin cusmaan aamino yaasiin cusmaan cabdifataax yaasiin cusmaan iyo dahabo maxamed axmed dhammaan dadkaas waxa ugu wardambeysay Soomaaliya 2004. haddaba haddii ayna maqlayaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo yaasiin cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. aadan maadow xasan oo jooga xerada qaxootiga ee Kakuma waxa uu baafinayaa dadka kale ah maadow xasan cali xareedo maadow xasan muhiino cabdi isaaq cabdulqaadir aadan maadow qadiijo aadan maadow iyo xareedo aadan maadow dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Jilib sanadii 1992. haddaba haddii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo aadan maadow xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma. nadiifo maxamed liibaan oo joogto xerada qaxootiga ee dhagaxley waxay baafinaysaa aadan maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Suudaan 2014. haddaba haddii uu maqlayo aadan maxamed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo nadiifo maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab ama telefoonka lambarkiisu yahay 757777905. sahro maxamuud xaashi oo joogta Kakuma waxa ay baafinaysaa dadka kale ah cabdulaahi burhaan maxamuud cabdiraxmaan burhaan maxamuud iyo cabdiqani maxamuud xaashi dhammaan dadkaasi waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Jubba sanadii 2018. haddaba haddii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo sahro maxamuud xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma. cabdulaahi shariif dalid oo jooga dhagaxley waxa uu baafinayaa abuukar cabdulqaadir maxamed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Muqdisho 1992. haddaba haddii uu maqlayo abuukar cabdiqaadir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo cabdulaahi shariif iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Dhadhaab. siti xuseen maxamed oo joogta
xerada qaxootiga ee Kakuma waxa ay baafinaysaa dadka kale ah Aamino Ooyaaye iyo Cabdiraxmaan Maxamed Deeriye waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan Koonfur Afrika sanadii 2012 hadaba hadii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Siti Xuseen Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Kakuma. Khalid Cabdi Cali oo jooga dalka Sweden waxa uu baafinaya dadka kale ah Aamina Xasan Ruuray, Farax Cabdi Cali, Xamze Cabdi Cali, Muno Cabdi Cali, Maxamed Cabdi Cali, Huda Cabdi Cali iyo Handi Cabdi Cali. Dhammaan dadkaas waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan Itoobiya 2015. Hadaba hadii ay maqlayaan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Khalid Cabdi Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay dalka Sweden. baafintina maanta naga inta sidoo kalena dhageystayaal waxaynu inta ku soo afmeeraynaa idaacadeena duhurnimo oo soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow anigoo Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ahayna la socodsiinayay tan iyo intaanu dib u kulmayno maalinta idin samaato.